عليكم حلوانada iyo gudoonka sharafta leh salaanka bacdi 2 sano ka bacdi waxaan ku faraxsanahay maalintii ugu horeysay oo baarlamaanka imid wixii aan dhaliilay in maanta horta baarlamaanka oo dhan ay fahmeen oo hay'adii aan sheegay oo bila ujeedada ahaa hadda uu xilwaanadii iyo ay dhan ay arkeen oo ay hadda dareemeen wixii aan sheegay inay wax jira ahaayeen oo maanta ugu wada fikiriyeen inta badan horta waa ku faraxsanahay ayagana ku maadsan yihiin talabaad sidoo kale waxaan ku faraxsanahay daraad kalfadhiga kan koreeyay sabtiga waxa arkay guddiga joogtada ahaa oo doodayo oo leh waxaas shacabka Soomaaliyeed danuma wallahi waa ku faraxsanahay ayaga inay wadaniyiin noqdeen ay dareemeen inay muwaadiniin oo xilwaaniyiin oo shacabka Soomaaliyeed matalaan oo dibkooda inay ka hadlaan xaq u leeyihiin ayadana waa ku faraxsanahay oo dareemayaan in mas'uuliyadoodu ay tahay inay si sacbinin ay tahay inay wax sheegaan dalka ay dadkan dan u ah ayadana waa ku faraxsanahay intaas ka bacdi waxaan rabaa ajandaha maanta oo ahaa hay'adii aan sheegay oo tirada badnaa hay'adahaas horta waxa hadda ugu badan oo la isku hayo waxa waaye lacag looma hayo lacag inaan loo haynin waa la ogyahay laakiin lacagta sida loogu raadihay ma aha sida saxda ah oo miisaaniyada ku jirtay waxa loogu raadihay waxa waaye sidii daraad oo wasiirka maaliyaddu uu ka sheegay saxaafadda uu lahaa EFC gaal canshuuraha oo kale horta wadankan ma baarlamaanka sharciga dejiyo mase wasiiraa seexanayo sharciyo soo saara subax markuu soo kaco taliye ciidana habeenkii seexay subaxii soo kaca sharciyo soo saara xildhibaanadu maxay qabtaa baarlamaanka shuruucda ma ayaga dadka u dejiyo mase qof kasta wixii ayada rabtay guriga leedahay waaye way soo fikiray wixii soo fikirtay soo sheegay hadii la canshuurayo EFC horta waa in sharci la keenaa baarlamaanka la keenaa xildhibaanada shacabka matalo ogolaadaan madaxweynuhu saxiixo faafin rasmi lagu soo saaray ka bacdi wax la canshuuro mid kale yaa xaq u siiyay dadka masaakiinta 3 milyan oo gobolka Banaadir degan ee dawladda federaalka labada ex control dawladda ka ah inay tiraan waa canshuura waligiis wasiirku suuqa bakaara ma tagay kan xamar weyne ma tagay suuqa xoolaha ma tagay ceelasha biyaha ma tagay suuqa Madiina ma tagay kaaraan ma tagay suuq bacaad ma tagay Siinay ma tagay ma yaqaanaan noloshii xaaladda ka jirto marka EFC la canshuurayo wadamada uu soo qaatay for example lacag kaash ay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ay isticmaalaan waxa la canshuuro EFC gaan waxa way dadka ay u gaarto lacagta haysto oo EFC isticmaalayo horta ma ahana noloshooda dhan dadka waxay ku xiran tahay EFC-ga nin gaari gacan riixayo oo $3 soo qaatay markii la dhaho marka naagta u tuurto 10 senti ka go'ayso marka bari soo gadatana 10 go'ayso marka caloolay gadatana 10 go'ayso maxaa haraayo waa inuu dhinto oo isku horimaad mid kale salaam barga iyo shirkadaha loo yeeray lacagta ma lacagta shacabka Soomaaliyeed iska leh qof kasta inta tagto ee $100 ka soo baxsay waxay ku qasban tahay inay $2 wax ku gadato $98 loo celiyo hadii wadanka Mareykanka oo yahay lacagtaas sarifka oo dollarka la helayo EFC waa la canshuuri karaa sax waay oo la helayo 50 20 30 hal ilaa wixii ka yar waa la canshuuri karaa EFC-ga laakiin ayadoo lacag ka shilin EFC la canshuura horta waa riyo dadkan Soomaaliyeed ku keenay ka aqal yar horta oo canshuuraha beenta loo soo fikiray waxaan si gooni u la hadlaa xildhibaanada 61 oo anigu aan ka mid tahay gobolka Banaadir iyo dadka degan isla haysiyo xildhibaanimo waxa uu tiin in shacabka maali ilaahay keeno loo soo fikiro lacag in la saaro oo adinku lacagahaas wax yar oo san dareeraal idinka siiyo ee aad ku faraxsantiin ee leediin madaxweynaha isku reernahay ra'iisul wasaaraha saaxiibna war waxaas ma aha wixii noo soo door waxa la idinka rabaa waxa wadankan ka jiro si sax ah inaa uga hadashiin oo runta aad sheegtiin oo ilaahay aad ka cabsootiin maaliyadda wadanka heer waxay maray wasaaradda maaliyadda $20 tasdiiq qaadi jiray xafiis niman inta looga furay ay $70 ku qaadayaan ee 20 wasaaradda loo diray 50 ay jeebkooda ka shaayaan waa faraxsan yihiin ma og wax dhibaato ka jiro masaakiina maalinta subax inta baxday dhar yaa u dhaqaa islaan dhahayso subaxii $2 $3 soo helay $3 maal canshuura salaam bangi iyo hormuud iyo shalay waa la xiray waxa la saaray dhibaato lagu sameeyay hadda waa tukal oo labaad duulaan cusub waay oo kale duulaankaas cusub dadka Soomaaliyeed way ku baraarugsan yihiin shacabkan gobolka Banaadir oo masaakiinta oo 3 milyan ciday doona Soomaaliya ka ahaadaan waxaas loo soo fikirayo oo lacag looga qaadayo laga dhaafo waa dad wadaniyad ah oo Soomaaliya oo wadanimada jecel oo dadka Soomaaliyeed isugu mid yihiin dawladnimada jecel waa dad masaakiin oo diintana jecel laba waxa loo soo qaataa shaati mar waxa loogu soo buufsadaa caalamka Soomaaliya iyo xidig shan falaarood leh
markay maqlaan waxaad roohayaan mar waxaa loo soo qaadaa mid tawxiid ku buufsaya laa ilaaha illa allah lagu soo qoraa waxaasoo dhan waa shaarar isbaaro loo samaysto oo maalinba mid markay fahmaan ay xanuunsadaan mid kale loo soo gashto war ilaahay intaa ka cabsatiin maaliyad iyo miisaaniyad waxaas wax ka horeeya jireen waddankan baarlamaankan waxaa la rabaa guddiga maaliyadda inuu wasiirka maaliyadda u yeero wasiirka difaaca sidoo kale in loo yeero wasiirka gaashaaniga ee isku maleeya inuu yahay wasiirka warfaafinta ee xildhibaanada baarlamaanka ka caayaayo maalin iyo leed asagoona jawaab ka bixin heshiiskii uu Itoobiya la soo galay 24 December oo hordhaca u hayay gobol xaarka heshiir beelaadkii oo Muuse bixi saxiixa asaana waxba laga weydiin qaraxi oo kuliyada jaalisiyaad aan ka jawaabin tii oo isbitaalka xoog aan ka jawaabin kii galcad aan ka jawaabin xoos weyn aan ka jawaabin ajintaa ku soo noqo wax kasta muhiim ah waa ka hadli doonaa wax kasta muhiim ah oo shacabkani waa ka hadli doonaa laakiin ajintaa ku soo laabo diwaan maadsan gudoomiye ajandaa iyo wax waa isku xiran yihiin ana xildhibaanaha waxa xaq u leeyahay marka meeshaan imaado wax alaal wixii aragtideyda iyo waxa dadka aan matalo iyo Soomaalida dhibaayo inaan ka hadlo waa ka hadlaynaa laakiin meeshaan dadka ku caburiso ajintaa ka hadal ajandaa waa isteeda u gali doona ajintaa ka hadal ha hantida Soomaaliyeed oo baabaaday iyo dadka dhintay ajandaa maaha ajandaa waa noo qoran yahay waa cad yahay forum hataa waa heli weynay dood kale inooma furna ajandaa noo furun kii horey loo ansaxiyay ka hadalkaas u kaadi gudoomiye waxaa jiro wasaaradda arrimaha dibadda waxaa la leeyahay waxaa lala hadlaa al-shabaab shalay madaxweynaha waxa uu ka dhahay lama hadlin haddana liiskii wasiirka qadar lagu aadayo oo ra'iisul wasaaraha iyo waxa la soo saaray wasiirka waxbarashada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ay aadayaan 250 qof la invitaashay waa la qarixa war waxaas dawladnimo ma aha walaalayaal dawladnimada waa la yaqaanaa dawladnimada ha laga shaqeeyo qofna inta seexata dadkan ay u soo fakarin sharci aan baarlamaanka la soo marsiin sharci maahan hay-adaha tirada badan mooshinal qora waa la soo celiyaa waxa la isugu tuutuugaa sharciga jiro sharci xeeroosaad iyo dastuur waddanka leeyahay kaasa la waafajiha salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh